waxaan maanta arkay yarkan Soomaaliga ah oo nimankaas cadaanka ay si xun u garaacayaan oo aad iyo aad ay u jidiyaan kadib waxaan isir ninkan waxa inta lagu sameeyay oo saa loo garaacayo maxaa weeye xogti waa raadi in sheego xogtaas waa qaar ka mid ah yaabi doonaan ninkan waxa la yiri waxa uu hayr Soomaaliya oo ku nool wadanka Mareykanka waxa uu bartay gabar cadaan ah oo jirta 13 sano oo bal hoos ka gashay gabadhii waxa la yiri way isu kaansadeen waxa la yiri way ballameen waxayna ku ballameen inay jamac sameeyaan yani inay wada ciyaaraan gabadhii waxa la yiri maadaama ay gabar yar ahayd family ayaa ka shakiyay mobilka way ka qaadeen kadibna waxay arkeen ninkaas oo arrimahaas ay ka wada hadleen ay wada ballameen yani kadibna gabar kale mobilka loo dhiibay ninkii bay ballamisay waxaana loo ballamiyay niman gaangis ah oo jiriga magaalada ah inta lacag la siiyay nimankii markuu meesha imaaday nimanka loo ballamiyay intay qabteen bug iyo xabad u garaacay oo waxay uga tageen meed ahaan Mareykanka qof dhan shafta ka qaado laguma ogola laakiin waxa ninkan meed ahaan baa looga tagay waa kana muuqaalkiisa bal hadeer ninkan miyaa khaldan mise gabadha khaldan gabar baa ballamisay 13 jir ah wuu shukaansaday kadibna family-giisii gabadha family-geeda way ogaaday wayna ballamiyeen wayna garaaceen oo waxay uga tageen meed ahaan gabadhu haday ninka iyadoo rabto oo tahay 13 jir qooqay waxaa loo diray ninkan masiirka oo Soomaaliya oo laga rabaa gabadha iyada qooqday oo ninka rabtay war yaa ilaahay yaqaan wallahi markaan akhristay shakadan aad baa u yaab